wadooyinkii ugu dambeeyay waxa caado noqotay in danta qaranka iyo danta shisheeyaha la isbarbar dhigo oo la isbarbar socodsiiyo marmarka qaarna danta shisheeyaha la soo hormariyo laakiin annagu dawlad ahaan dhexdhexaad kama nihin dawladnimada iyo madax bannaanida dalkeenna ilaalinta dalka diinta iyo dastuurka ayaanu u dhaaran sidaa darteed annagoo ixtiraamayna daris wanaagga iyo madax bannaanida waddamada nala jaarka ah haddana marnaba ma oggolaanayno in lagu soo xadgudbo madax bannaanida qarannimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirkan jaraa'id waxaan markaa u qabannay inaannu fariin arrintaa ku saabsan halkan ka dirto oo ay ugu horrayso kow arrinta kenya sida aad la wada socotaan 29 Noofembar waxa aan wada tashi ugu yeernay safiirkeennii inoo joogay Kenya sidoo kalena waxaan u sheegnay safiirka Kenya oo fadhiya Soomaaliya inuu la tashi ugu laabto dalkiisii waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheegno sababta ugu kaliftay tallaabada diblomaasiyadeed ee aanu qaadnay saan hore u soo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku shaqaysaa dareenka iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaana u taagan tahay difaaca iyo ilaalinta madax bannaanida dalka sidoo kale waxay dhowraysaa xeerarka caalamiga ah iyo wada noolaanshaha shucuubta caalamka Kenya waxaanu haynaa ixtiraam qadarin darisnimo iyo inaanu ahaano dan wadaag labadaba ku wada nool mutual interest dhinacayaga markasta waanu dhowrnaa arrimahaas asaasiga laakiin Kenya kama muuqato darisnimo wanaag ee waxa ka muuqda damac dama socda riyo maalmeed aan munaasib ahayn iyo qarab ku dhisan dhalanteed oo ay ku hunguraynayso dhulka iyo badda Soomaaliyeed tusaale ahaan Kenya waxaanu in badan kala shaqaynaynay arrimaha amniga ee labada dal waxaanu qaadanay falsafad ah cadowga dariskaagu waa cadowgaaga laakiin Kenya waxay dooratay oo jeclaatay inay u dhaqanto sida rajiimkii Tigreega ee faragelinta badnaa kaas oo halka uu ku dambeeyay aynu maanta ka wada warqab sidoo kale ciidamada Kenya ee Kenyan Defence Force kaleerada KDF waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM ciidamadaasi waxay ku joogaan ogolaanshaha dawladda Soomaaliya iyo awoodsiinta Security Council-ka ama golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhinacayaga ciidamadaas sida ciidamada kale AMISOM waxaanu la leenahay wada shaqayn buuxda laakiin dhinaca Kenya taasi kama jirto marar dhowr ah bay KDF ama Kenya Defence Force ka baxeen goobo lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare AMISOM weliba haddaan arrintaa faahfaahin idinka siiyo waxay mar dhexdaas ka baxeen Kenya Defence Force-ku laba goobood oo aad u istiraatiiji ah oo kala ah faxfaxdhuun iyo busaar iyagoo aan cidna ka talagelin bixistaas talaalaaneed ee aanay cidna u sheegin inay baxayaan shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Gado dib badan baa ka soo gaaray intaasoo kaliya ma hadhibto sidoo kale Kenya waxay faragelin joogto ah ku haysaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ay madaxdiisa ku qasabto arrimo ka soo horjeeda oo ka dhan ah danta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed wada shaqayntii Kenya sii wadaaye duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya ee hawadeena mara inta badan waxa ay isticmaalaan hawada Soomaaliya airspace si hufan oo hagar la'aan ah baanu ugala shaqaynaa isticmaalka hawadeeda laakiin dawladda Kenya waxay safarka ku dhibaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolada ka safra oo ay ku khasbaan baaris dheeraad ah iyo inay sanduuq ku soo maraan wajeer dhinaca shaqo abuurka Soomaaliya waxa ka shaqeeya kumanaan muwaadin oo u dhashay waddanka Kenya oo si sharaf iyo karaamo leh uga shaqeeya dalkeena waanu ilaalinaa oo soo dhaweynaa oo dhowrnaa laakiin dawladoodu ma danayso taas beddelkeeda Kenya waxa ay martigelisaa dad aan ka shaqaynayn danta Soomaaliya markasta dhinaca ganacsiga Soomaaliya waxay suuq weyn u tahay warshadaha iyo beeraha iyo wax soo saarka Kenya
laakiin Kenya ma ogola in badeeco uga tagto dhinaca Soomaaliya iska daa ganacsi xuduudda ka gudbay xilli kasta waxa ay burburiyaan ganacsiga shacabka Soomaaliyeed sida taawarada iyo qalabka isgaarsiinta ee ay ku shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel dhibaato kale oo shacabna inta badan oo ay ciidamada Kenya Defence Force ku geystaan oo gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe ka geystaan uu soo gaaray intaas oo dhan oo jirta intii Soomaaliya ka soo kabatay ay soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dawladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhal geliyo dariska laakiin taas bedelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dawladnimada dhismaysa ee dalkeena haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno danjiraheena la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29 bisha November ee hadda dhamaatay arrintan inaanu u yeerno danjiraheena miyaanu ku degdegnay mise waanu la soo daa maya maanu ku degdegin oo waxa nooga horeeyay dawladda Kenya oo 16 February 2019 sanadkii hore dib ugu yeeratay safiirkeeda laakiin dawladda Soomaaliya markasta waxay muujinaysay bisayl iyo diblomaasiyad qaangaar okay haddaba miyaanu la soo daahan maya lamaanu soo daahin oo diblomaasiyadda ayaa ku dhisan saying the right things at the right time inaad waqtiga saxda ah go'aanka saxda ah qaadato sidaas baanu ula sugaynay waqtiga ku habboon rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakiilaha alwikaaw aakhir alcilaaj dab in la isku dhajiyaa waa dawada halka ugu dambaysa sidoo kale abwaankii saahil qamaan 100 sano ka hor waa kii inoo sheegay in diblomaasiyaddu tahay rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo talimo meerta noo tahay ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho saddex magacalle xaajada layma marasiyo qofka waa loo dulqaataa dawladda waa loo dulqaataa diblomaasiyadda waa loo dulqaataa laakiin markay timaado waqtigeeda waa laga jawaabaa saasaanu ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Kenya gabagabadii shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan in Soomaaliya aanay maanta ahayn Soomaaliyada burbursanay ee ay tahay dawlad madax bannaan oo cod ku leh fagaarayaasha caalamka sidoo kalena waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dawladoodu u taagan tahay midnimo wadaniyad madax bannaani qaran dawlad wanaag iyo ilaalinta sharafta dalka ma aqbalayno inaanu dib u laabanno ma aqbalayno inaanu hal dhibic ka tanaasulno awoodda iyo madax bannaanida qaramada ee Soomaaliya sida uu nafarayo qodobka koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa 3 iyo sidoo kale qodobka 2 faqradiisa 1 iyo faqradiisa 7 axdiga qaramada midoobay oo adkeynaya madax bannaanida iyo in sharci darro ay tahay in la farageliyo dal xor ugu dambeyn siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan inay danta dalkooda ka hormariyaan danta dal kale xilku waa maalmo xilku waa meerto xilku waa maalmo kooban laakiin qarannimadu waa wax weyn annagu maanta waxaanu siyaasadda ku dhisan kalsoonida iyo sarreynta magaceena ugu shaqaynaynaa si jiilka soo socda aanay ugu noolaan qaranjab iyo gacmo hoorsi ee ay ugu noolaadaan qad iyo qarannimo siyaasi kasta oo Soomaali ahna sidaas oo kale ayaanu ku boorinaynaa